بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنو ونكسن داوديال كسور وهذا وركا جنال كينا حكتا دالك قضبضا وركا عاد كدام ودون تانا وحاكم من دقندون الرئيس الوزراء روبلو اسكوريجي كيسكا إقران تهليل iyo ahlu sunna iyo galmudug oo hadda dagaalkooda u muuqanaya mid gabi ahaanba qaboobaya xilli saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka ay ku sugan yihiin degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada kala duwan ahlu sunna iyo galmudug iyo xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan ka jira qaybo kamid ah degmada guraceel ee gobolkaasi ayaan daawadayaal warkan idinku soo gudbin doonaa haddii rabbi qadaro iyo waawaantii ugu dambeysay oo halkaasi ka socoto haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like dheh share garay commentigaagana waa noo muhiim aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa wuxuu iska wareejiyay gabi ahaanba kiiska Igraan Tahliil ra'iisul wasaare rooble iyo wasiirka amniga ayaa kormeeray xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka isagoona warbixin ka dhageystay agaasimaha kumeel gaarka ah ee saraakiisha hay'adda ra'iisul wasaare rooble oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan jira iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee waqtiga kan taagan rooble ayaa sheegay in kiiska Igraan Tahliil uu ku wareejiyay xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana uu sheegay in saraakiisha ammaanka ay kala shaqeeyaan sidii kiiskaasi baaritaan dheeraad ah loogu sameyn lahaa wasiirka amniga iyo taliyaha kumeel gaarka ah ayaa waxa uu faray inay la shaqeeyaan xeerlaaliyaha waxaana taasi u muuqanaysaa in kiiska Igraan Tahliil uu faraha uu kala baxayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble maadaama uu gabi ahaanba iska wareejiyay kiiska Igraan Tahliil oo si gaar ah loogu eedeynayo saraakiisha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxay u muuqataa in maxamed xuseen rooble uu gabi ahaanba uu ka gaabsanayo xilli maalmihii ugu dambeeyay uusan ka hadlaynin kiiska Igraan Tahliil Igraan Tahliil oo horey loo sheegay inay ku maqan tahay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa hadda waxay u muuqataa in kiiskeeda maalmihii ugu dambeeyay laga gaabinayay waxaana tani u muuqanaysaa in xaalado kale ay dhalin karto kiiska Igraan Tahliil maadaama shakhsigii looga tashanayay kiiska Igraan Tahliil uu hadda uu sheegay inuu gabi ahaanba u wareejiyay kiiska Igraan balse xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu horey u sheegay in uu cadaaladda uu keeni doono cid kasta oo ka dambeysa dhibaateynta Igraan Tahliil isla markaana uu tilmaamay in talaabo kasta ay noqonayso mid si cad loo qaadi doono tani ayaa sidoo kale waxay u muuqataa xilli horey maxkamadda ciidamada qalabka sida ay u sheegtay inaysan gibi ahaanba ay baari karin kiiska Igraan Tahliil maadaama caqabado fara badan ay ka haystaan dhinaca hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka taasi ayaana waxay u muuqataa in dhibaato kale ay dhalin karto wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya degmada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa waxay sheegayaan in halkaasi xaaladeedu ay degan tahay wararka ka imaanaya degmada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa waxay sheegayaan in dagaaladii kala duwanaa ee halkaasi ka jiray ay hadda xaaladdu ay degan tahay iyadoona si gaar ah loo cambaareynayo dagaalada kala duwan ee ka soconaya qaybo kamid ah degmada guraceel ee gobolka galgaduud saaxiibada beesha caalamka ayaa walaac ka muujiyay dagaalka ka socda magaalada guraceel ee dowlad goboleedka galmudug oo colaada dhibaato ba'an dhali karto sida ay sheegeen saaxiibada beesha caalamku ay ugu baaqeen dhinacyada dirirta u dhaxaysa in ay si dhaqsi ah loo joojiyo dagaalka waxaana ay sheegeen in talaabo kasta loo baahan yahay in si cad mowqif lagu wada qaato isla markaana dadka shacabka ah danahooda laga fikiro howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM Belgiumka Canada Denmark Ethiopia midowga Yurub Finland Jarmalka urur goboleedka IGAD Talyaaniga Kenya jaamacadda Carabta Netherland Norway Qatar iyo Sweden Turkiga Uganda boqortooyada Ingiriiska dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaana waxay tilmaameen in talaabo kasta oo loo baahan yahay in ay la joojiyo dagaalkaasi uu noqonayso mid danta shacabka si gaar ah looga fikirayo dagaalka ka soconaya degmada guraceel ayay sidoo kale waxay ku tilmaameen saaxiibada beesha caalamka mid dhibaato badan ka dhaxdhalin kara qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka isla markaana waqtiga kale loo baahan yahay in danta shacabka laga fikiro isla markaana ahlu sunna iyo sidoo kale maamulka galmudug ay miiska wada hadalka ay fadhiistaan isla markaana si loo xaliyo dagaalka ka soconaya qaybo kamid ah degmada guraceel ee gobolka galgaduud kaasi oo la sheegay in dad aad u fara badan ay ka barakaceen degmada guraceel
waxaa sidoo kale hakad ku jira gebi ahaanba ganacsiga guud ee degmadaasi si la mid ah dhammaanba waxaan shaqaynaynin adeegyada muhiimka u ah bulshada. degmada Guriceel ayaa waxay soo martay xaalado kala duwan iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada wili qayladhaantii ugu dambeysay ay wadaan. sidoo kale taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Generaal Daahir Indhaqarshe ayaa waxa uu sheegay inuusan marnaba dagaal taageeraynin isla markaana uu doonayo wada hadal in lagu dhameeyo dagaalka Guriceel. isagoona uu Muqdisho ku sugan ayuu u waramay warbaahinta waxaana uu sheegay in dagaalka Guriceel ay dhibaato fara badan ay ku tahay shacabka isla markaana waqtiga kan loo baahan yahay in wax waliba miiska wada hadalka loo fadhiisto. tani ayaana waxay u muuqanaysaa in wili si gaar ah loo raadinayo sidii xal fudud lagu heli lahaa isla markaana dagaalkaasi go'aanka madambeysa laga qaadan lahaa. hase ahaatee waxaa mas'uuliyiinta maamulka Galmudug wili ay ku adkeysanayaan in ay dagaalka ay wadayaan. hase ahaatee warar hoose ay heshay warbaahinta xogta dalka ayaa waxay sheegayaan in mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ay hadda ay wadaan waanwaantii ugu dambeysay oo lagu xalinayo dagaalka ka taagan qaybo kamid ah degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. inkastoo mas'uuliyiinta qaybaheeda kala duwan ee maamulka Galmudug ay hore u sheegeen in loo baahan yahay in la joojiyo dagaalkaasi, inkastoo xildhibaanada Galmudug ay si gaar ah u kala fikrado duwan yihiin dagaalka ka soconaya degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. hase ahaatee hadda ayaa waxay u muuqataa in dagaalkan xogaa yara sidoo hore oo ka soo qaboobaya maadaama ciidamadii ugu badnaa ee dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay isla markaana ahlu sunna ay u taag weysay dagaalka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo huwan ah. dagaalkana uu noqonayo maalinba maalinta ka dambeysa mid xoogeysanayo waxaana gabaldhicii maanta la sheegay in dagaalkaasi uu gebi ahaanba uu joogsaday. qaar ka mid ah ganacsatada ka soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi ay waanwaan ka dhex bilaabeen isla markaana ay doonayaan in ay gebi ahaanba la joojiyo dagaalka. qaar ka mid ah ganacsatada ku nool deegaanada Galmudug ayaa waxay sheegeen in danta shacabka si gaar ah looga fikirayo iyadoona hadda ay kulamo kala duwan ay ka wadaan qaybo ka mid ah degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud halkaasi ay kula kulmayaan mas'uuliyiinta maamulka ahlu sunna wal jameeca iyagoona kala hadlaya danta dadka shacabka ah ee dhibaatooyinka kala duwan waqtiga kan haysta. tani ayaa waxay u muuqanaysaa in xaaladda guud ee degmada Guriceel ay waji kale yeelatay maadaama ay hadda ay soo galeen qaar ka mid ah ganacsatada ay isku heeb yihiin Sheekh Maxamed Shaakir oo sheegayna in loo baahan yahay in danta shacabka degmada Guriceel si gaar ah looga fikiro. wararkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in sidoo kale Sheekh Yuusuf Indhacade uu gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo la sheegay in uu doonayay inuu isaga qudhiisa uu ka mid noqdo dagaalka Guriceel ayaa waxaa qaybaha kala duwan ee bulshada ay si gaar ah siyaabo kala duwan ay u kala hadlayaan inkastoo madaxda maamul goboleedyada ay gebi ahaanba meel dheer ay ka daawanayaan waxa ka soconaya Guriceel qof walibana uu kaliya u dantiisa eeganayo. sidoo kale waxay u muuqataa in Guriceel haddii uu dagaal ka sii socdo in gebi ahaanba doorashada Galmudug ay dib u dhici karto taasi oo si gaar ah qof waliba ay indhaha ugu hayso. hase ahaatee siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug markii laga reebo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Daahir Maxamuud Geelle kaliya ayaa ka hadlay inta kale way ka aamuseen taasi oo noqon karto in dana gaar ah laga leeyahay dagaalka ka soconaya degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka daawadayaal waa naga inta hadaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like dheh share garay commentigaagana waa noo muhiim waad ku mahadsantahay daawashada warka janaalkeena xogta dalka.